keena ayuu ku badayahay horta waa inaynu meel isla dhignaa horta bal dhalmalaanta waxa weeyaan laba qaybood baan u qaybinaa mid waxa weeyaan mid la daweyn karayo yacni oo aanad qofkii ka samaraynin midna waxa weeyaan dee waxa weeyaan waxaad go-aan baad ku gaadhay qofkan dee ilaahayba uma qorin inuu caruur yeesho marka waxa laba loo kala saaraa waxaan kugu sheegay laakiin dhalmalaanta badida waxaan nahnaa marka reerku ay xaas yeeshaan 12 bilood si joogta ay u wada joogaan ilaahayna aanu dhexdooda waxba ka beerin marka waxaan leenaynaa dhibaato dhalmalaan baa jirta markaynu baadhno aynu wixii dabagalno haddaynu aragno in maxaa hayday aan waxba laga qaban karaynin waxaynu oranaynaa magiciin waa la bedelayaa waxay noqonaysaa waxaa la sterility oo afka qalaad lagu dhahay sterility annagana afkeenana dee waxa weeyaan lama daweyn karo kale ka dhigantay wixii waa dhammaad inkastoo iminka adduunyada taa laftigeeda especially weliba ragga in qaar badan la daweyn karo iyadoo markii hore lagu qiimeeyay inaanay ahayn in la daweyn karayo haddaynu soo qaadano su-aashaadi weydiisay aan dib ugu noqdo ahayd ayuu ku farabadan yahay ragga iyo dumarka adduunyada kale iyo somalilandba horta waxaa loo kala qaybiyaa waxaa loo kala qaybiyaa dhalmalaan ragga ka timid dhalmalaan dumarka ka timid iyo dhalmalaan labadiiba ay caadi yihiin haddana aan ilaahay dhexdooda waxba ka keenin marka markaynu adduunyada soo qaadano intay ka joogtaa waxay ka dhigan tahay dumarku waa ilaa 40 ragguna waa ilaa 35 boqolkiiba dumarku boqolkiiba 40 ragguna boqolkiiba 35 waxay ka dhigan tahay inta kalena waxay yani 20 ka kale 25 ka kalena labadiiba qofba waa caadi laakiin haddana caruurtu ma aysan iman